kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka kulanka wararka qodobada wararkeena xilligan waxa ay kala yihiin lacag fara badan oo lagala baxay qasnada dawladda hoose ee xamar dawladda Soomaaliya oo waqti dheeraad ah ku dartay muddada ay xabsiga ku sii haynayso wasiirka amniga Jubbaland tirada xildhibaanada laga siiyay ahlu sunna ee baarlamaanka Galmudug oo la shaaciyay farmaajo oo markii ugu horeysay ka qayb galaya shir caalami ah iyo dood ka taagan siyaasiga mucaaradka ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qeyra hal arin ugu baaqay sidoo kalena ka hadlay khudbadii xasaasiga ahayd ee uu ka jeediyay Baydhabo iyo meydka askari ka tirsanaa ciidanka AMISOM oo laga helay xarunta Xalane waxaa dood badan oo adag ay ka taagan tahay in baaritaan lagu sameeyo lacag ka maqan qasnada dawladda hoose ee xamar taas oo badankeeda la bixiyay intii u dhaxaysay weerarkii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir iyo aaska Allah u naxariistay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqii Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Iliisow warbaahinta ayaa ogaatay in xisaab celin ay sameyn waayeen guddiga u xilsaarnaa xaaska daryeelka iyo sidoo kale dadkii wax ku noqday weerarkii aqalka dawladda hoose ee xamar waxaana la sheegay in lacag dhan 1 milyan oo dollar ay kala baxeen xarunta aqalka dawladda hoose xamar iyo qasnada lacagtaas ayaa badankeed la sheegay in lagu qarash gareeyay aaska marxuum Iliisow iyo sidoo kale daryeelkiisaba waxaana sidoo kale ku jira lacag kale oo daawac ahaan loogu daaweeyay dadkii waxyeeladu ay ka soo gaartay qaraxii ka dhacay xarunta aqalka dawladda hoose xamar lacagtan oo laga bixiyay qasnada dawladda hoose xamar ayaa lagu sheegay inay ku baxday daryeelka marxuum Iliisow intii uu dhaawaca ahaa iyaaskii qaran ee Muqdisho lagu sameeyay sidoo kale lacagta ayaa lagu qarash gareeyay mas'uuliyiintii kale ee geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxii xarunta aqalka dawladda hoose xamar sidoo kale waxaa jira lacag fara badan oo laga bixiyay qasnada dawladda hoose xamar taas oo lagu sheegay in lagu bixiyay dayactir iyo qurxin lagu sameeyay xarunta aqalka dawladda hoose xamar balse aysan jirin wax hoola oo ay ka muuqan karto lacagtaas kumanaanka dollar ee lagu qarash gareeyay xarunta aqalka dawladda hoose xamar balse guddigan ayaa loo heystaa dacwad lacagta ugu badan oo dhan 700 oo kun oo dollar ayaa la sheegay inay baxday 24 Luulyo oo ahaa maalinkii uu qaraxu dhacay ilaa 8 Agoosto ee bishii hore xogtan ayaa laga helay xafiiska maaliyadda ee gobolka Banaadir kadib markii Cumar Finish uu ka dalbaday kusimihii gudoomiyaha gobolka Banaadir Ibrahim Dheere in uu soo gudbiyo lacagta ka baxda gobolka Banaadir dadkii la shaqaaleysiiyay iyo kuwii la dalacsiiyay muddadii uu kusimaha ahaa warbaahinta ayaa sidoo kale ogaatay in xubno sare oo ka tirsan gobolka Banaadir in ay arintan ku rug leeyihiin sidoo kalena muran badan ay ka taagan tahay Cumar Finish ayaa yiri waxaan go'aansaday inaan hanti dhowrka iyo madaxda qaranka la wadaago tirada lacagta shaqaalaha iyo hantida gobolka Banaadir ee aan ugu imid inta aan soo shaqo galin wixii markaas ka dambeeyay ayaan qaadan doonaa mas'uuliyadda wixii dhaco ayuu yiri gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir Cumar Finish hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ka hadlay socdaalka ra'iisul wasaaraha uu ku joogo magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Facebook ayaa sheegay in ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre looga baahan yahay inuu garowsiyo iyo magdhow ka bixiyo dadkii lagu dilay magaalada Baydhabo 13 ilaa 15 December ee sanadkii hore sidoo kale waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay inuu fuliyo ra'iisul wasaaraha balantii ahayd in gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ay wadajir ugu balan qaadeen shacabka iyo odayaasha iyo sidoo kale dadka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed ra'iisul wasaaruhu waxay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Koonfur Galbeed ugu fadhiyaan inuu garowsiyo iyo magdhow ka bixiyo dadkii sanadkii hore lagu laayay magaalada Baydhabo sidoo kalena uu fuliyo balantii ay si wadajir u soo qaadeen madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha golaha shacabka kuwaas oo balan qaaday in madaxda dalka ay magdhow iyo garowsiyo ka bixin doonaan dhibaatooyinkii ka dhacay Koonfur Galbeed bishii December ayuu yiri siyaasiga mucaaradka ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur rabshadihii ka dhacay Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Baydhabo xilligii doorashada waxaa ku dhintay 11 qof kadib markii la soo xiray Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur oo kamid ahaa musharaxiintii maamulka ee xilligaasi u tartamaya doorashadii uu ku soo baxay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen
wasiirka wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda Soomaaliya Ambassador Jamaal Maxamed Xasan ayaa shaaciyay in sanadkan markii ugu horeysay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka qayb galayo shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Wasiir Jamaal oo ka warbixinayay shir ay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo wakiilada beesha caalamka ku yeesheen Baydhabo ayaa xaqiijiyay safarka madaxweynaha ee magaalada New York ee dalka Mareykanka. Sidoo kale wasiirka qorsheynta ayaa xusay in dowladdu ay u diyaar garoobeyso shirka iyo sidoo kale in ay ka qayb qaadanayso howlaha muhiimka ee dalka ka soconaya. Sidoo kale ka hor shirkaas waxa uu sheegay in kulamo gargaar ah uu madaxweynuhu la yeelan doono wakiilada beesha caalamka. madaxweynaha ayaa la filayaa inuu khudbad ka jeediyo shirkan oo 74aad. madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu khudbad ka jeediyo shirkan oo ah kii 74aad ee golaha guud ee qaramada midoobay, waxaana kaga hadli doonaa arrimaha amniga, dhaqaalaha, horumarada ay gaartay dowladiisa iyo doorashada 2021. madaxweyne Farmaajo ayaanan ka qayb galin shirkaas tan iyo markii loo doortay madaxweynaha Soomaaliya sababo la xiriira dhalashada Mareykanka ee uu haystay. Farmaajo ayaana bishii hore iska wareejiyay sidoo kalena ka tanaasulay dhalashadii labaad ee uu ka haystay dalka Mareykanka. Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo la soo xiray 31dii bishii hore ee Agost ayaa weli ku jira gacanta ciidamada ammaanka iyadoo aan weli la soo taagin maxkamad. warbaahinta ayaa ogaatay in dowladda Soomaaliya ay codsatay in 40 cisho oo dheeri ah loo siiyo in ay xabsiga ku sii hayso si ay dacwad rasmi ah ugu soo oogto Cabdirashiid Janan oo loo haysto dilal ka dhacay gobolka Gado. sharciga Soomaaliya ayaa diidaya in dowladda Soomaaliya ay qof muwaadin ah xabsiga ku sii hayso wax ka badan 48 saac iyadoo aan dacwad ku soo oogin, waxayna cadeynaysaa waqtiga dheeraadka ah oo ay dowladda Soomaaliya dalbatay in uu sharci daro ku xiran yahay. wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa ku xiran xabsi ku yaala xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, isla markaana waxa uu qorshaha u yahay in la horkeeyo maxkamadda. Master Janan ayaa ku jira xabsi guri maalmo ka hor laga soo wareejiyay Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur, kaas oo ku dhex yaala xarunta Habar Khadiijo ee magaalada Muqdisho. saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in hay'adda NISA lagu wareejiyay Cabdirashiid Janan isla markaana ay kala wareegeen mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo madaxtooyada qaranka. annaga waa nagala wareejiyay Master Janan, waxaa la wareegay xukuumadda, waxaa lagu hayaa xarunta NISA, ayuu yiri sargaal ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa 31dii bishii hore ee Agoosto garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ka xirtay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan isaga oo safar ku sii jeeda dalka Itoobiya, waxaana transit ku ahaa magaalada Muqdisho. odayaasha dhaqanka ee magaalada Beledweyne ayaa si adag uga hor yimid amar ka soo baxay dowladda federaalk ee Soomaaliya, iyadoo dhanka kale dowladda Soomaaliya ku eedeeyay inay fargelin ku hayso reer Hiiraan. dowladda Soomaaliya ayaa amartay in ciidan ku sugan magaalada Beledweyne loo kaxeeyo gobolka Galgaduud, kuwaas oo ay sheegteen wixii agab ay iyagu leeyihiin in ay siin doonto. ciidankan oo bilaahuba ayay dowladda Soomaaliya ka dalbatay inay tagaan gobolka Hiiraan. odayaasha dhaqanka ee reer Hiiraan oo kulan ku yeeshay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay ka hor yimaadeen amarka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee ah in ciidankaas loo wareejiyo gobolka Galgaduud. odayaasha dhaqanka ayaa kulankooda kadib waxay sheegeen inaysan ciidamadu ka bixi doonin magaalada Beledweyne isla markaana aysan tagi doonin magaalada Dhuusamareeb. odayaasha dhaqanka ayaa sidoo kale dowladda ku eedeeyay inay faragelin ku hayso bulshada gobolka Hiiraan, taas oo ay sheegeen inaysan u dulqaadan doonin. waxay dalbadeen in magaalada Beledweyne isaga baxaan saraakiil uu hogaaminayo taliyaha qaybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje oo sabdigii soo gaaray magaaladaasi si uu u kaxeeyo ciidamada. saraakiishan oo iyaguna Beledweyne kula kulmay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa u sheegay in halkaas ay u yimaadeen sidii ay u kaxeen lahaayeen ciidamadii dowladda Soomaaliya ay amartay in la geeyo gobolka Galgaduud. saraakiishan oo iyaguna magaalada Beledweyne kula kulmay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa u sheegay in ciidamadan ay kaxeen doonaan. sanado ka hor ayay ahayd markii maamulka gobolka Hiiraan uu si cad uga hor yimid in ciidamo laga kaxeeyo magaalada Beledweyne in la geeyo gobolka Galgaduud.
ugu dambeynna mid ka mid ah kaaliyaasha taliyaha ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ayaa meydkiisa laga helay magaalada Muqdisho xilli aan la garanayn waxa sababay geeridiisa. Sargaalkan ayaa meydkiisa laga dhex helay guri uu ka deganaa xerada taliska ciidamada AMISOM ee Xalane, waxaana socda baaritaano lagu ogaanayo sababta geeridiisa. Sargaalkan ayaa waxaa meydkiisa laga helay guri uu ka deganaa xerada taliska AMISOM ee Xalane, waxaana socda baaritaan lagu hayo. Sargaalkan oo lagu magacaabi jiray Edwan ayaa ka mid ahaa kaaliyaasha taliyaha ciidamada booliiska AMISOM, waxaana u dhashay dalka Uganda. Warbaahinta Uganda ayaa si aad maanta u qortay in sargaalkan uu si qarsoodi ah ugu dhintay gudaha magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarunta ugu weyn ee AMISOM. Xukuumadda Kampaalana la soo gaarsiiyay fariin ah inuu geeriyooday, balse waxaa soconaya baaritaano lagu hayo. Guud ahaan daawadayaal, halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa wararkii aad ka daawanayseen janalkan. Daawada haddii aad ku cusub tahay janalka, waxaad saartaa subscribe qaybta hoose ee janalka, waxaad inoogu reebtaa aragtidaada. Sidoo kale daawade, waxaad furataa gambaleelka si ay kugu soo dhacaan wararkii ugu dambeeyay ee aan halkan kusoo daabacno.